sameeyo bariga uu sameeyay uu joogay wax qabad buu sameeyay nabadgelyo sameeyay wuxuu sameeyay hadii bidikada beeri uu sameeyay warshadu sameeyay isagoo meel wacan marinaya ayaa jiilkii ku soo kordhay ee la joogay ee qabyaalad lagu dugay oo markaas ka xumaantay oo qabyaaladii uu yidhi xumaan kaga jawaabay muu wacyi gelin muu hadii bidikada leeyahay waxa ahayd inuu wacyi geliyo inuu dadka aanu qori ku furin inuu wuxuu sheego markaa dambe way ka xumaatado qori buu ku furado dibadna waxay noqotay canfaray firir dhibaatadeedu waa taa maanta taagan weli waa taaganta ninka madaxweynaha waxa laga doonayaa madaxda inay ummadda wacyi geliso inay wax barto inay u maslaxadu samayso inay wanaajiso qori hadii lagu kiciyo dadku uu kacaya waa biloobaya oo balaaya ka soo dhex baxaysa waxaan leenahay war ummadda dadka ilaahay madaxda uga dhigado meel kastaba jooga aflagaadada iyo cayda iscaaysan ka joojiya wanaag iyo sharaf iyo xishood ku wada dadkana ku wacyi geliya taanu kula talinana anagu waa taa aakhirana waa la idin xisaabinaya iftiinkana dadku dawadin arki doona waxaanu leenahay maantana wali waa ladan alxamdulillah waynu joognaa Soomaali baynu nahay inteeda badani diin waa ku dhaqantaa haddana waxba inaga siiyo meel baa wax ka dooran dadku maanta tacliin badan buu leeyahay tacliintii haddana uu lahaa waxba ka maqan oo ishmayntii iyo wanaagii iyo walaalnimadii iyo wax badan baa ka maqan shaafaajiriq baa muuqda waxa laga joojiyo dadka wanaag iyo dariiq wanaagsan cidii hoggaanka ilaahay u dhiibow nasiibso oo hay